ما أنت أول مالين مواد كستكوي وحسك درارتي هجانك يا سنم وحجرتك يقول تدبلها الصومالي لان أي براكو جدور سدين إن وحي الشرع دعاي حال الدليل لقد نقضه إن نعيدي لك الشري لقي مادو ولقوا مدور بقع الصب وأول على النمو نبض ودشر يغر النمو لو ذليه وهو أقوان تاريخه وهدي عن مالين تهلا جاري لهين أينان ما أنت هايبسن كرنين هل كاي متشوجدو صدني يا فرسانو أي اللي جتشوجا دبوا رشدي سومالي لان وهاي يسوون صباحناي إنه مركل الدنيا وشجنو إن قرن كني وكل سيء هاي ديج هالجمياشي كلا دنبي الجميع دون كها دبوا رادنتي إن جمهورية سومالي لان أي مركله قرن عطو يددال كي دولة ديسكا إيو كسو كباشدة بولبوركي لحيا لواتاكي تشون كو سقال بغولي اللحدكي أيي جمهورية الصومالي لاند قبل نمدة كغالتاي بغورتوية دا إنجريسك وهي كمدة هايد دلالكي حرية دوغو ورغاتاي غارد أفريكا نيد وناك أي غران نمدة سي صومالي لاند كغالونتاي وهي كدور بداي صومالي لدينا يولاله الصوماليا أي جامعة يسقط سيأيو بعض دونان دولة نمشنت الصومالية ودكتو وهيستي شابه داس النقطي في الرومين كريواي ودي السعودي وحيد عاي يدرو فيه الصومالي ما أنت وركتالو نجمو هيان وهانو النهاي طلع شر كبر توايه وهانو حقيقة صنعي إن صومالي دو ما أنت أيوب هندهاي إن قيب كستاج قال كذا استحضه وهي خلدمي وحنو رجينينا إن ولا رهيو أيوة ضمبين تارين تاك جرابي دونان إن فهم الدونان إن سيابك كرابضا وحلا وضع قبسن كرو وحنو كوكل صون هاي جمهورية الصومالي لان أو قرن مدح بنانه إن وحبلا كغبن كرتو حلو هليده دباتة الراكتي هايسة الصومالية وهانو قالوا النهاي وحكي خلطمي دولة نمد الصومالية أنا هي موسى وليبا وهانو الله النهاي ويا رجل نمو أنا كو عاون كرنو سي دولة نمد صحة ودسن لهاي ترى الدرسكا يدوني دبا وهانو باغينا إن يتيح جليان ددالك أغونسيغا دونكا الصومالي لان إلا قبرتو عشرة لوغا فايديستو نباداينتا iyo dibdhiska dalalka burburay ee gobolka iyo qaaradaba jamhuuriyadda Soomaaliland iscaafin nabadayn dhexdeeda ayay ku dhisatay qarannimadeeda waxay abuurtay nidaam iswaafajinaya dawladnimada casriga ah diinteena islaamka iyo dhaqankii soo jireenka ahaa ee bulshada Soomaaliland waxay qabsatay afti qaran iyo 8 doorasho oo dhamaantood xukunka si turxaan lahaana la isugu dhiibay xilkana la isku wareejiyay waxaana maanta goobta jooga madaxweynihii iga horeeyay ee xilka igu wareejiyay bila yar ka hor waxay dhisatay dhaqaale si caafimaad qabta u koraya iyo kaabayaal muhiim u ah horumarka dalkeena maanta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay buuxisay halbeeg kasta oo laga filayo qaran madax bannaan waxayna muujisay mas'uuliyad dawladnimo waxa lagu aaminay heshiisyo iskaashi iyo maalgashiyo caalami ah oo ay si buuxda uga soo baxday waajibkoodii ma jiraan xeerar iyo curfi caalami ah oo diidaya in jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka mid noqoto qaramada la aqoonsan yahay ee dunida go'aan siyaasi ah ayaa naga hortaagan aqoonsiga go'aamada siyaasiga ahina ma waaraan waxaan ku celinayaa in maanta laga gudbayo ayaa muuqata sasaakeedii arrintaas dalal badan oo dunida ka mid ah ayaa garawsaday inay dano siyaasadeed amni iyo dhaqaale la wadaagi karaan jamhuuriyadda Soomaaliland
dalalkaas waanu soo dhaweynaynaa la shaqaynaynaa cid walba oo waxay inala qabsanaysa gacmo furan baynu ku soo dhaweynaynaa iyo dal xasiloon oo dadkiisu diyaar u yihiin horumar xukuumaddaydu waxay diyaar u tahay in saaxiibada deriskeenala ah iyo dunida kaleba aynu ka wada faa'iidaysanno khayraadka dabiiciga ah ee alla inagu galladay dalkeenna si waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo danaha Somaliland dhulka iyaga istiraatiijiyada badan leh hawada iyada badda iyada iyo dekedaha iyaga madaarada iyada iyo khayraadka dabiiciga ah ee aanu hodanka ku nahay dhammaantood annaga gacanta ku haysana cidna la wadaagtaa ma jirto maamulkooda iyo taladooda midna maanta ma jiro dal adduunka ka mid ah ama urur caalami ah oo aan ogeyn xaqiiqada ah in jamhuuriyadda Somaliland ay tahay waaqici iyo run jirta de facto state waxaan ku faraxsanahay inay dhammaantood xooggaal u yihiin in cidda keliya ee ay heshiis kala geli karaan ay tahay xukuumadda Somaliland waxaa kaloo bogaadinaya warba joogta jamhuuriyadda Somaliland oo taageero joogto ah ku leh kobaca iyo dhaqaalaha dalka lacagaha ay xawaaladaha ku soo diraan doodaha iyo abaabulada aqoonsi raadis ay ka wadaan dalalka ay ku nool yihiin iyo maalgashiyada ay dalka ku sameeyeen waxay si weyn u caawiyeen horumarka dhaqaalaha iyo in magaca Somaliland ka dhex muuqdo fagaarayaasha dunida waxa naga go'an inaanu sii xoojinno kaalinta ay qurba joogtu kaga qayb qaadanayso horumarka dalka dhammaan dalalka dunida waxaan ugu baaqayaa in la joogo xilligii ay jamhuuriyadda Somaliland la aqoonsan lahaa Somaliland door muhiim ah ayay ka qaadan kartaa ammaanka horumarka dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika iyo badda cas mabda'a aasaaska waa siyaasadda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Somaliland waa nabad iskaashi iyo ixtiraam waxaanu diyaar u nahay inaanu xidhiidho iskaashi iyo saaxiibtinimo la yeelano dalalka deriska aynu ku nahay gobolka Geeska Afrika iyo badda cas waxaanu diyaar u nahay inaanu kaalin macnale ka qaadano arrimaha gobolka ay ka mid yihiin nabadda ammaanka ganacsiga iyo isdhexgalka dhaqaalaha waxaanu mahadnaqayaa dalalka nala yeeshay xidhiidhka saaxiibtinimo amni iyo dhaqaale kuwaasoo ka mid yihiin dalka Itoobiya imaaraadka carabta ingiriiska maraykanka Djibouti iyo Taiwan iyo Kenya munaasabadda xuska qarannimada Somaliland awgeed waxaan dhammaan codsi aqoon raadis ah u kala diray madaxweynayaasha ra'iisul wasaareyaasha boqorrada amiirada iyo dhammaan hogaamiyeyaasha 195 dal ee xubnaha ka ah ama goobjoogayaal ka ah qaramada midoobay shalaydaana la gaarsiiyey codsigaas muwaadin kasta oo Somaliland ah waxaan xasuusinayaa in xuduudeena iyo jiritaanka qarankeenu uu ku dhisan yahay midnimadeena in xaaladda hadda hareeraheena iyo dunida ka jirta sida kaliya aynu kaga badbaadi karnaa ay tahay wadajir iyo iskaashi inaynu ka feejignaano kuwa doonaya inaynu qabiilooyin ama gobollo u qaybsanno badbaadinta qaranka iyo ilaalinta nabadgelyadiisu waa waajib muwaadin kasta saaran
وإنaynu la shaqayno ciidamada ammaanka ee habeen iyo maalin hoggaanka u ah ilaalinta nabadgelyada adkaynta midnimada iyo difaaca qaranka dhalinyaradu yaanay marti ka noqon horumarka iyo dhismaha qarankooda iyaga ayaa madaxda ah berrito waxaan ugu baaqayaa inay hormuud ka noqdaan la dagaalanka qabyaaladda isdhexgalka bulshada iyo nabadaynta tamartooda halabuurkooda iyo haladaygooda ayaa go'aaminaya masiirka runta ah ee qarankeenna ee maanta iyo berri sidoo kale waxaan bogaadinayaa haweenka Somaliland oo ah shamaca nabadda iyo xasilloonida qaranka kaalin muhiim ah ay kaga jiraan horumarka ka soo gabashada colaadaha iyo dhismaha qaranka iyaga ayaa jaangooynaya sida ay bulshadeenu u ekaanayso mustaqbalka xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay ka shaqaynaysaa dhiirigelinta maalgelinta iyo godlinta hibada iyo dhismaha xirfadda haweenka waxaanu ka shaqayn doonaa in haweenku ay door muuqda ku yeeshaan dhammaan dhinacyada nolosha dadweynaha walaalayaal dhammaanteen waxayna mideeya jamhuuriyadda Somaliland oo aynu wada leenahay taariikh aynu wadaagno iyo jiritaan aynu dhuun iyo dhiigba u shubnay calanka tawxiidka leh ayaa inagu wada filan oo ina deeqa xukuumaddaydu waxaa ka go'an inay xoojiso dowladnimadeenna iyo wax wada lahaanshaheena siyaasadda xukuumadda wadajir iyo waxqabad waa in basaasta laga ilaaliyo hannaankeenna dimuqraadiga iyo qoriisu dhiibka ah waxaan hirgelin doonaa nidaam dhaqaale iyo kaabayaal isu dheeli tira dhammaan gobollada jamhuuriyadda Somaliland waxaanu sees adag u dhigi doonaa difaaca qarannimadeenna iyo in ubadkeennu dhaxal uga dhigno qaran dhidiba adag ku taagan shaqada inoo taalla ma yara waynu sugnahay awoodeennuna ma buurna laakiin warwar ma qabo maadaama waxa aynu doonaynaa inoo cad yahay jihadii saxda ahaydna aynu ku soconno waxaa ku soo koobaya oo ku soo gebagabaynaya erayada heestii abwaankayse ee uu qaaday allaha u naxariistee maxamed maxamuud cige busi oo ay ka mid ahaayeen Somaliland dadkayga Somaliland dalkayga dadku waa midkii ingiriiska diray dalku waa mid qura waa hawl iyo diir diintu waa islaam cidi doorin karin dusha waxaa u suran calan aan degayn Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato